Assalamu alaikum kulanti wanaagsan ee ku soo dhaw muuqaalkan Photoshop markaan ku shaqeynayno dabcan waxaan ka shaqeynaynaa ama aan wax ka bedelayno oo edit gareynayno sameynayno waa sawirro sawirro haddaan sameynayna waxaa laga yaabaa inaan sawirkii wax badan ka bedelno qaabku ahaa maahe dhowr qaab oo kale ama noocyo kale ka dhigno size ka haddaan rabno yareyno haddaan rabno wax ka googooyno haddaan rabno qoraal ku darno oo sidoo ahaa maahe si kale oo changes ku sameyno dabcan saan horey u soo qaadanay sawirrada aan wax ka bedelayno oo maxaan ku yiraahdaa editing ku sameynayno waxa weeye sawirrada loo yaqaan raster images saan horey u soo hadalay wax ka kooban yahay wax loo yaqaano wax ka kooban yahay pixels so physical pixels hadda sawirkaaga soo zoom garaysid aad arki kartid wax ka kooban yahay raster images marka waxay lahaayeen dabeecad bay leeyihiin u gaara dabeecadaas waxay tahay maadaama sawirkii haddaan aan edit gareynayo wax ka bedelayo markastoo aan size-kiisii yareeyo oo scale-kii uu caadiga ahaa loogu talagalay aan ka yareeyo wixii waa ku shaqeynaya moogtahay scale-kii ka yareeyo oo wax yar ka dhigo haddaan rabo dib u soo weyneeyo wixii ama sawirkii qualities waa dhumaya oo wax ku dhacaya pixelated wuxuu ka dhigan yahay in sawirkii pixelskiisa ay dhumaan isla markaana uu noqdo wax shucaac ku jiro aan si fiican loo arki karin oo aan muuqan karin sometimes haddaad xitaa si fiican usii fiirisid aadan arki karin clarity ama qualities oo kale saas ku dhuntay maadaama ciladaasu jirto Photoshopka waxay leedahay oo lagu soo daray feature ama dariiqo aad u ilaashan kartid sawirkaagii adigoo weyneynaya yareynayana ama wax ka googooynaya isla markaana saa rabto u edit gareynaya waxa awood u leedahay oo ilaashan kartaa sawirkaagina qualities ilaalisid oo waxa ku suurtagelinaya waxay tahay dariiqo Photoshopka ay leedahay oo aad u ilaashan kartid sawirkaagii isla isagoo sidiisii aan wax badan maxaan ku raahday iska dhumin pixelskii aad haddana edit gareysan kartid marka muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa smart objects-ka iyo qaabka loo sameeyo markii Photoshop la joogo smart objects-na waxay yihiin qaabka dariiqada aad ku ilaashanaysid sawirkaaga pixelskiisa adigoo edit gareynaya haddana aad ku ilaashanaysid pixelska sawirka resolution-kiisa iyo quality-giisa full ku ahaanayo marka saan u wada socono waxaan u baahanaynaa soo furno document-kan ugu talagalay tutorial-kan inaan isla socono waxaan tagaynaa folderkii kadib baan waxaan soo dooranaynaa filekii wax ku jira essential practice waxa ku sii jira smart objects waxaan soo dooranaynaa marka documentigaas open baan dhahaynaa open markaan dhahno waxa inoo soo furmaya dabcan documenti aynka u samaysan raster images markaan ka hadlayno ama sawirrada badanaa Photoshopka gudaheeda lagu shaqeeyo wax laga bedelo waxa weeye sawirro sida caadiga ah ku samaysan physically pixeladaasina ay yihiin square yar oo sameynaya muuqaalka sawirkaas isla markaan aad wax ka bedesho ama sawirka size-kiisa yareyso ay ka dhumayaan pixelskii markaan wixii noqon karo wax la yiraahdo shucaac ku jiro marka waxa kaloo jira sawirro nooc kale ah isla meesha adoo ku edit gareynaya aan ahayn raster images sawirradaas waxa la yiraahdaa ama object-yada waxa la smart objects waxay yihiin ama ay ka samaysan yihiin pixelskaasoo oo kuwa halkaan ka muuqda aan ahayn waxay ku originally ka samaysnaa documentigii hore sawirka markaa meesha soo gelinaysay originalkii uu banaanka ku joogay waxay yihiin pixels maxaa ku dhahay objectyo ka samaysan oo sidii propertieski dhammaan leh aan waxba laga bedelin siduu ku yimi si gaar ah haddaad u fiirisid dhanka layerska documentigana waxa halkaa inoo ku jira qaybta example waxa inoo ku jira wax loo yaqaan laba xabo oo tufaaxa labada xabo oo tufaaxa haddaad si fiican u fiirisid waa isu eg yihiin oo markaa halka ka fiirisid waa wax identical ah inay colorka uun kala duwan ma sida kale xataa size-ka waa iska leeyihiin oo tan size-keedu waa intaas tan waa intaas marka halka xagga layerska haddaan fiirino isku maxaan ku rahay isku symbol ama isku icon ma aha haddaan fiirino marka qaybtan ay ku qoran tahay tufaaxda ay cagaaran oo kale tufaax cagaaran markiin si fiican u fiirino waxa halkaan ka muuqda dabcan tufaaxdii laakiin tan ka hooseysa waxay wadataa icon aad moodid image ama maxaan ku raahdaa wax loo yaqaan documenti icon ah oo dheeri bay wadataa taas waxay inoo cadeynaysaa inay tusaysaa inuu sawirkeena yahay smart object haddaan mouse kor saaro wax yar si fiican u fiiri
waxa soo baxaya smart object thumbnail. Smart object marka waa objectyadan ka sheekeynayna shaqada caanka ah oo inay pixelska sidoo u haysan karaan aha hadaan fiirino dhankan marka si u fiirino practical image-yada rasterka waxaan niri waxa weeye pixels waa ka dhumaa maadaama markasta aad yarisid pixels waa ka dhumaya hadaan si fiican u fiirino marka hadda practice aan u sameeyno waxaan dooranaa tufaaxda cagaaran baan ka dooranayna then show transform control isna noo saaran tahay check on fiirnay hadii uusan lahayn maxaa ku dhahay version kaaguna control iyo t baa isla qaban kartaa markaas uu caadi kugu soo baxaya markay saas u muuqdaan transform control iska baan yareynaya marka size-ka waa yareynaya si fiican u yaree si fiican u fiiri waa yareynaya ilaa waxaan geynayaa meel hoose oo baaba markaas aan hatta si fiican loo arki karin tufaaxiin kale bar oo kala noqday طبعا haddana waa soo weyneynaya si fiican u fiiri wax ku dhaca bahashaas soo weyneeyay soo waday size-keedii hore oo kala ku aadinaya tufaaxi si fiican u fiiri marka cagaarna waxa ku dhacay pixelated buu noqday macnaha pixelska baa ka dhumay oo shaac baa galay hadda kan soo clear u yahay kan clear uma ah oo shaac baa galay kan ka hooseeya haddaan fiirino ka waraysa marka waa yareynayna isagana sidoo kale yareynayna waxaan geynaynaa size-ka meeshaan tii geynay meel la mid ama ka hooseysan geey karnaa dabcan waa geynay okay baan niri aad iyo aad buu yaryahay si fiican xataa loo marka haddaan soo weynayna ka waran tufaax asadoor shifti alta anigu hayaan soo weynaynaya centerka igu soo weynaado waa soo wadaya ilaa meesha aan la rabo markaan keeno baan dabcan waxa leeyahay confirm ama enter baan taabanaya si fiican u fiir maxaa ku dhacay wax iska bedelay malaha sidii uu markii hore aan ku yareynay buu ku yaraaday mar halka kii kale ay ku dhacday markaan yareynay inuu shaac galo hatta uu muuqiisi uu shaki ka galo waxaan inuu tufaax yahay kale inuu wax iska madow meesha la iska kala reeyay in kale inuu kala yahay caleentii si fiican u muuqato bartii si fiican u muuqato geeskiisi clear buu ahaa awal laakiin hadda wax ku jira shaacayn caadi ahayn halka tii kale ay tahay clear marka maxay tahay sababta wayba saa ku dhacday sababtaas waxay ku dhacday smart objects-ka waxay awood u leeyihiin in ay maintain garaystaan pixelskoodii markay pixelska ilaashanayaan waxay ka dhigan tahay smart objects waxay ka kooban yihiin originally image-ku wuxuu ka samaysnaa properties-kiisa oo dhammaystiran bay haystaan waxa halkan inuu ka muuqdana ma aha objectiga caadiga ah laakiin waa representation oo objectiga wax noo soo bandhigaya tufaaxi reelka ahaa ma aha objectiga wax noo soo bandhigayo oo tusaale ahaan meesha u yaala inagoo object aan u isticmaalana laakiin objectiga ruuxiisi maaha isaga laftigiisa maaha laakiin kan si run hadda u fiirisid oo sababtu isla bedelayo kan rasterka ah waxay tahay objectiga run ah waayo wuxuu ka kooban yahay pixelski oo caadiga ah si fiican hadda u fiirisada arki kartid then saasu wuxuu u jawaabaya inaad ka noqdo maxaan ku raadayay sababtaas waxay keenaysaa marka in ay ku dhacdo pixelated oo shaac galo pixeladii ay ka dhumaan markaas ay ciladu halka ka timaado marka waxaan fiirinaynaa qaabka loo create gareeyo smart object markaan ku soo darsanayo maxaan ku raadayay markaan ku soo darsanayo smart object documentary-ga dariiqadan marayno baa fiirinaynaa marka waxaan tagaynaa folderkii aynu ku jireen documentary smart object oo soo furaynaa tufaaxdaas meesha taala baa soo furaynaa markaan soo furo tufaaxii dabcan halka ii taala waxaan rabaa inaan geeyo marka documentary-gii move tool-kan soo dooranaya move tool markaan doorto baan drag gareynaya waxaan wadaya ilaa aan geeyo taabka marka ii soo baxdo maxaan ku raadayay sawirkii kale baan dhex dhigaya markaan dhex dhigo haddaan size yareeyo oo halka ku fit uga dhigo dabcan kuwan la ekaysiiyo oo dan aan enter dhaho waxa halka ku dhumay horta pixelska haas ku dhumay laakiin anigu saamo rabo oo waxaan rabaa pixelska inay quality ahaan u ilaashto saas oo kale markuu ii yahay banaanka ii yaal waxaan tagayaa dhanka layerska markaan tago waxaan layer 1 baa magaca loo bixiyo horta magac ka bedel smart 1 de smart object u bixi enter de magac markaan u bixinay waxaan tagaynaa marka layerka magaciisa tagaynaa layerka magaciisa waxaan siinaynaa right click
right click markaan siino meeshaan waxaan ka fiirinaynaa convert to smart object. Convert to smart object waxay u bedelaysaa smart object. dabcan thumbnailkii xataa uu isbedelay awal wuxuu ahaa sida kan oo kale laakiin hadda wuxuu noqday smart object iconkiisa uu yeeshay. markaas kadib baan size-ka yaraysanayna si aan pixelskii inoo ka dhumin. qaabkaasaan wax u samaysan kartaa wax la yiraahdo smart object inaad sawirkii soo gashatid kadib soo kaxaysid markaad right click ku dhahdo convert aad ka dhigtay smart object. qaabkaas baad u create garaysan kartaa marka smart object. waxaa laga yaabaa marka inaad isweydiisid su'aal smart object baan haystaa see wax uga bedelaya. smart objectigi waa kan haddaan soo qaato masxaad oo kale halkan anoo joogada masxaad inta soo qaato dabcan wax ka bedelo close baa saaran. haddaan brush close baa saaran haddaan click siiyana waxa leeyahay this smart object must be rasterized. waxaan rabaa in laga dhigo maxaa ku dhahday image-kii caadi loo rastereeyo kuwa kan oo kale laga dhigo anna ma doonayo. marka wax isweydiin mudan qaabkee wax uga bedelayaa wixii darbaada inaan color ka bedelo ama adjustment ku sameeyo colorkiisa qaabkee wax uga bedelayaa. smart object iconkiisa aan tagayaa laba jeer baan click siinaya iconka then waxaa la weydiinayaa qoraalkaas ay soo baxaya okay baan leeyahay. okay markaan dhaho meel cusub baa la geenayaa waa originalkii sawirkeena ama smart objectigeena originalka ah halka la keenay. dabcan xataa intii hore uu ka weyn yahay sooma intii hore wuxuu uga weyn yahay waxa meesha inoo oolaa oo yaraa ma ahayn sawirkii runta ah laakiin wuxuu ahaa thumbnail ama presentation oo sawir ahaan meesha marka la maadaan smart ahaan waxaynu u bedelanay oo aan u bedelayno ka ilaalinayno in pixels laga dhamaan. marka si aan wax u bedelo click baan siinaynaa waxa layna geynayaa meel kale oo aan wax uga soo bedeli karo. markaas haddaan u baahnay adjustment ku sameyn karaa tagaya adjustments ama Ctrl U baan qabanayaa saad saturation ku saartid then baa wax ka bedelaysa daartid cagaar ka dhigaysaa blue ka dhigaysaa waxaad u baahan tahay oo kale. okay markaa dhahdid halkaas ku save gareyn kartaa marka Ctrl S baa leeyahay qaabkaas ku save garaysa. haddaan u soo noqono marka war smart object-geeni haddaan u soo noqono document-geeni cashar ku sharxanaynay dabcan see noqday waa isbedelay. sababta isu bedelay waxay tahay original image-ka baan bedelay inagu. original image haddaan dib u bedelo ka waran oo ka dhigo saalaan saas ka dhigo okay dhaho oo save gareeyo see noqonaya haddana waa isbedelay. that's why bay waxa la yiraahdo smart object-gu aysan u ahayn real object. oo real object waxa loo hayaa si hayr garaysan marka rabto inaad wax ku bedeshina isagii baa meel original meel kale lagu bedelay halkaas si gaar ah wax uga soo bedelaysaa. qaabkaas marka si gaar ah wax uga soo bedeshid waa save gareynaysaa kadib buu isbedelaya key presentation-ka ay meesha ku oolaa. marka qaabkaas baa waxaad u samaysan kartaa smart object-ga daartana wax dhid garaysid wax ka bedeshina wax uga soo bedelaysaa dariiqadaas maraysaa click baa siinaysaa kadib meel alla kugu furmo markaas aad wax ka soo bedeli kartaa. smart objects marka waa way ama dariiqo aad u ilaashan kartid pixelskaaga isla markaana markastoo aad shaqadaadu badato ay shaqo ama aad sameynaysid wax aad u baahan tahay in si fiican loo arko hadhow oo aad haddaad wax badan ka bedelaysid markaas aad smart ahaan inta ka dhigatid objectyadaadii kadib aad ku sameyn kartid maxaan ku raahdaa wax loo yaqaan editing oo markaa ay ku ilaashamayaan pixelskaaga. waxaana muhiima si aad u fahantid inaad cashirka daawatid kadib aad practice-ka samaysid waayo inaad daawatid quraa'o maskaxda ku qaadatid wax ka fiican inaad wixii caadi gacantaada uga samaysid si aadan ula noqotid wixii qof ku shaqeeyo gacantiisu ay baratay maskaxduna wixii lagu celceliyo bay barataa. inagu wali basic Photoshop ku jirnaa wax kooban cashara qaadanayna haddana waxa muhiim mar walba qofka inuu soo sameeyo wax loo yaqaan practice oo ku celiyo casharkii. layer adjustment editing yar baan ku sameeyay hadda laakiin wax u baahan tahay tusaale ahaan oo kale inaad wax badan bedeshid inaad kaliskid inaad maxaan ku raadayay wax dheedee ku soo dartid marka intaas oo dhan ba adaa laga rabaa. anigu just wax ku tusaya dariiqada aad u maraysid oo ugu kooban ku hawshaas ugu fuli karto baan ku tusaya. marka waxaad u baahan tahay adigu inaad practice badan samaysid. inagu hadda waxaan ku soo darayaan smart object inaad 5-6 ku soo dari kartid isku day si marka ay kugu fududaato maxaan ku raadayay inaad hadhow samayn kartid marka real shaqa tagtidood document caadi samaysay. muuqaalkii smart objects-ka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. muuqaalka ku xiga waxaan ku arki doonaa waxa loo yaqaan paths iyo pen tool-ka
Photoshop marka la joogo qaabka math loo sameeyo iyo pen toolka qaabka loo isticmaalo aan si gaar ah u fiirin doonaa waa inoo iyo content xiiso leh